ayaa warkaasi ka soo diray Muqdisho. siyaasiyiintan iyo aqoon-yahanadan ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta raaligelin ka bixiyeen shuqaaqa dhawaan ka dhacday magaalada Beledweyne taasoo dhaxmartay ciidamada Amisom ee ka socda wadanka Djibouti ee ku sugan magaalada Beledweyne iyo shacabka ku dhaqan magaaladaasi. kulankan maanta Muqdisho ay ku yeesheen siyaasiyiinta iyo waliba aqoon-yahanadan ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ay kaga hadleen shuqaaqadii dhawaan ka dhacday Beledweyne ayaa waxa ay si weyn uga hadleen waxqabadkii ciidanka Amisom waxaana uu kulankooda ku soo beegmaya xilli magaalada Beledweyne ay ka socdaan kulamo lagu taageerayo ciidamada wadanka Djibouti. raaligelin inaan ka bixino ma ka bixinaa raaligelin ma ka bixinaa aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan raaligelintaas u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle. waxaan u diraynaa raaligelintaas shacbiga reer Djibouti oo dhan. waxaan u diraynaa raaligelintaas ciidamada qalabka sida ee Djibouti oo dhan gaar ahaan kuwa Hiiraan waa ku dhinteen way ku dhinteen waad ogtahay. maanta waxaan isugu nimid waxgaradka halkan jooga reer Hiiraan inaan runtii raaligelin ka bixino anagoo muujinayna shucuurteena dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday gobolka Hiiraan 20kii bishan Oktoobar. runtii dhacdadaas oo ahayd dhacdo moogtahay si kama u dhacday waxay ahayd runtii in sidii annagaba caadada noo ahayd in waxyaabaha dhaca oo saas oo kale ka dhaca gobolka in la isaga yimaado oo dadka wax magaradka aysan ka faa'iidin. waxaan aaminsanahay reer Hiiraan oo maanta shucuurteena halkan inaan uga gudbino raaligelinta aan ka bixino si xilnaa Ibraahiim oo iga horeeyay inaanan raalli ka ahayn arrintaas oo aan u jirin qof reer Hiiraan ah oo raalli ka ah in calan Djibouti iska dhaafe qof Djibouti magaciisa in la xumeeyo saas ma isku raacsanahay oo hadafka oo shirka uu maaragtay uba ahayba oo ciidamada Djibouti ama dadka reer Djibouti dhammaantood shacabkooda iyo baarlamaankooda madaxweynahooda dhammaantood waa ka raali gelinaynaa dhibaatada meeshaas ka dhacday oo ah calankii in la gubo. maxamed Usmaan Makaraan, Universal TV, Muqdisho. wasiir ku xigeenka